coronavirus ama covid-19 waa virus lamida fayrasyada ku dhaca ee neef mareenka sida kuwa hargabka keena oo kale sidoo kale xanuunkan ma ahan qaababka ama sida looga baqanayo oo dadkii oo ku dhacay boqolkiiba 97 waa ka caafimaadeen qiyaasta 3% ayaa u dhintay waxaana ka sii dhibaato badnaa qaar kamid ah fayrasyada hore u dilaacay sida fayraska dhawaan ka dilaacay Afrika Ebola sidoo kale dadka u dhintay waa dadka difaacooda oo liito sida kuwa sonkorta qaba ama kuwa la nool xanuunada qaarkood ee la kala qaado sida HIV oo kale ama waayeelada inta ugu badan ee dhimatay waa dadka boqolkiiba 97 way ka caafimaadeen qiyaastii dadka uu ku dhacay qiimeynta la sameeyay ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta oo aan uga hadli doono dawooyinka hadda tijaabada ku jira ee loo isticmaalayo coronavirus iyo qaababka looga hortagi karo coronavirus waa virus lamida sidaan soo sheegnaba fayrasyada ku dhaca neef mareenka sanbabada qaasatan markaana ku keena qofka hindiso iyo qufac iyo qandho fara badan kadibna qofka markuu fuuq baxo jooji kara ama istaajin kara kaliyihiisa ugu dambeyn qofka uu u dhiman karo xanuunkan waxa jira marka dawooyin lagu la dagaalamayo hadda oo aan weli la shaacin laakiin tijaabo ku jira dawooyinkaas oo waxa ugu caansan dawada antiviruska ah ee lagu magacaabo remdesivir. How far along are we in developing a drug to treat COVID-19? So we decided to take a little bit of a different approach this time. We designed the clinical trial to be available to different drugs sequentially. The first drug that we're going to test is remdesivir. So this is the medication that has already a track record of a viral replication inhibition. So we looked into in vitro and animal studies. sidoo kale waxa socota tijaabo lagu tijaabinayo vaccine looga hortagi doono ama loo sii isticmaali doono xanuunkaas in looga gaashaanto kaas oo tijaabadiisu hadda ay socoto laguna tijaabinayo dooli iyo waxyaabo lamid ah si loo ogaado waxtarkiisa iyo qaabka uu uga hortagi karo xanuunka inta kadib cudurkan coronavirus ama covid-19 waxa uu qofku uga hortagi karaa inuu gacmihiisa dhaqo marka uu tago ama taabto meelo looga shakisan yahay xanuunka in laga qaadi karo oo saabuun waxyaabo lamid ah ku dhaqdo sankiisa inuu daboosho sidoo kale qofku faacaya markii uu la kulmo waa inuu ka sikado 3 mitir ama wax ka sii badan si dropletska ama dhibcaha sankiisa ama afkiisa ka soo duulaya aysan u gaarin sidoo kale meelaha dadku isugu yimaadaan waa inuu iska ilaaliyo sanka oo inuu daboosho qofka hadii uu ku dhaco kale waa inuu cabitaan fara badan qofku isticmaalo sidoo kalena qudaar fara badan si difaaciisa uu kor ugu qaado waa inuu isticmaalo sidoo kalena qofku waa in uu qaato dawooyinka markaas la isleeyahay tijaabada ay ku jiraan ama wax badan ay u qaban karaan qofka sida tan hadda aan sheegnay oo kale remdesivir oo kale marka kadibna qofku uu dadaal badan ku bixiyo inuu qaato biyo fara badan oo isticmaalo qaato sidoo kalena dawooyinka xanuun baabi'iyaha ah waa mahadsantiin mowduuceena maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayna